soonka joogtada ah ayaa ka hortag u ah wadna xanuunka. baaritaan lagu daabacay majalada Medical Express ayaa tilmaamay saameynta soonka joogtada ah ee uu ku reebo caafimaadka wadnaha iyo da'da qofka. hay-adda caafimaadka wadnaha Mareykanka ayaa sheegtay in soonka joogtada ah uu yareeyo khatarta cudurrada wadnaha isaga oo dheereeya da'da qofka. baaritaanka ayaa waxaa ka qayb galay ku dhawaad 2,000 oo qofood, 389 qofood ayaa lagu tijaabiyey soonka joogtada ah muddo 4 sano iyo bar oo xiriir ah. khubarada ayaa la socday xaaladda ka qaybgalayaasha iyagoo ogaaday in dhimashada kooxdani hoos u dhacday 40% marka loo fiiriyo kooxda kale ee aan afka xiran. tirakoobyo caafimaad oo la xiriira wadnaha ayaa muujiyey in dadka sida joogtada ah u sooma in aysan u bandhignayn khatarta cudurka wadnaha 71%. saynisyahanada qaar ayaa xusay inay kadis ku noqotay natiijada daraasadda. waxa ay intaa raaciyeen in soonka maalin ka mid ah bisha inay ka dhigayso jirka qofka mid firfircoon oo ku jira xaalad degan.